السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمتك وحرن channelkayga waxaan aad iyo aad halkan idinku bogaadinayaa in sheegayaa muhiimadda ama xogta ku duugan waxa la yiraahdo xidigaha geeska. Qofkii aan ka dharagsanay waxaan doonayaa caawa inaan warbixin kooban ka siiyo maxay xidigaha geesku maxay yihiin. Faahfaahin dheeraad ah ka bixiyo xidigaha geesku waa xusbi kamid ah xusbiyada Soomaaliland ka jira. Mar walbana ku xiran ama contact dheeraad la leh xusbiga gacanta ku haya dalka. waxaan halkan ka sheegayaa xidigaha geesku imika heestan waa daawateen intiina badan waad garanaysaan. heestan waxay ka hadlayaan arrimaha qabyaaladda, waxay ka hadlayaan waxaan ku dhahaa in dadku u leeyahay tawxiid calan la taagtay in waxaan ku dhahaa dalka la dhisto. haddana waxaad dib u yara milicsataan innaba haddii aad hore u aragteen iyo haddaad imika aragteenba waxaad dib u milicsataan xidigaha geesku intay ka tiri la eegyihiin markii ay jirtay doorashadan imika riiqda iyo ragaadka kaga tagtay dalka Soomaaliland. ololihii doorashooyinka xidigaha geesku wixii ay ka geysteen iyo halkii kaga jireen bal u fiirsada. imika halkan waxaan ku arkaa hablo iyo wiilal maasha Allah si fiican bay wada labisayeen. mid walba dukaan Hargeysa ku yaal baa looga soo labisay. mid walba dukaankaas labiskiisa dhowto dib uga baxaya. mid inama hablaan haafaa xiran magaalan ka muuqda naag waliba haafaa waxay xayeysinaysaa dukaan yar Hargeysa ku yaala. balse waxaan oran lahaa xidigaha geesku muwaadinimadooda ka dheer tahay, dadnimadooda ka dheer tahay, xidiga ahaan iyo magaca midnaba uma qalantaan. aniga laftay dhawaan dukaan baa Hargeysa ka furnay inaan dharkay xayeysiisaan baan aan ku tala jiraa anaa contact la sameynaya. xidigaha geesna saan kuma noqonaysaan. xidigaha geeska Burcaan laga atraafsanayna Burcaan ka jirin, Muqdishona ka jirin, Berberana ka jirin, Boosasana ka jirin, maxaan ku radaa Garoona ka jirin. iska daa meel kale geeska Afrika ma qaadan kartaan xidigaha fashionka in Hargeysa sidaas inaad iska tiraadaan baa idin fiican. marka dadka qabyaalad kala hadlaysan waxaad qof kala hadlaysan inuu ka dheeraataan baa fiican. marka xidigaha fashilan